شان baan noqday saribadii baan gali kari waayay anaga ka qurux badan anaga ka hanti badan dhawaan ayay soo gudbisay muuqaal bulshadu ay muddo badan hadal hayeen kaasi oo ay ku soo gudbisay baraha bulshada waxaana ay ku sheegtay inay tahay gabadha ugu quruxda badan magaalada Burco uguna hantiilaysan taasi oo magaalada Burco ku noqotay dhacdo ugu ku ah guud ahaanba haweenka ku nool magaalada Burco maadaama ay gabadhani sheegatay inay ugu qurux badan tahay haddaba Nuura Maxamed Yuusuf oo maanta waraysi gaar ah la yeelanay ayaa waxa ay naga warbixisay sababta ka dambeysay in muuqaalkani ay soo gudbiso iyadoo ugu dambeyntii noo sheegtay in muuqaalkaasi oo baraankii ahaa isla markaana ay bulshada dhexdeeda ku sameeysay challenge aan hore loo arkin waana tan iyadoo arrintaasi naga warbixinaysa magacaygu waa Nuura Maxamed Yuusuf maalintii oo gabadhii baraankiga samaysay baan ahaa baraankiga gaaray baraha bulshada waxa jirtay in muddooyinka ugu dambeysay si weyn aad u qabsatay baraha bulshada gaar ahaan muuqaal aad duubtay oo aad ku sheegaysay inaad tahay gabadha ugu quruxda badan magaalada Burco bal arrinta waxaad naga siisaa xog waxba kama jiraan bay ahayd waxa ahayd baraanki bay ahayd kulay maadaama munaasabadihii ciidda lagu jiray kulay waan iska xaraabaysanayni anigana sida ogtahay ma garanaaye intii baraankiga aan sameynayay adduun weynuhu ka dhaca ummadii oo dhan buu qabsaday dadku run bay moodeen war maxay ahayd telefoonku waa jaam garoobay anigi jaam baan noqday saribadii baan gali kari waayay anaga ka qurux badan anaga ka hanti badan anaga naastachiyam saan ku baraanki bay ahayd waxaan naagihii waan u taag waayay raggi waxay arkeen in hanti isnacda yahay war hantina ma hayste hada dadkii aan maxay tahay lacagayo ka sugay bisha inay dukaanka inaan haysto lacagayo way soo xaroodaan qof la wuxuu ku ganacsato weyn baad noqotay ama aad ahayd ama noqotayba waayahay waxaad ii sheegtay in arrintaas ay baraankii ku timi baraankiga markaa ma adiga hindisay mise waxay ahayd fikrad dad badan kula soo qaateen ma fakar inaan Hargeysa ka yimid soo qaaday bay ahayd isaga igu samee waanu sameeyay already ilmaha baraankina way ahayd waayahay markaad baraankiga dadku waxa ka raali ahaadaan baraankiga dayay wax walba iska qaadan umadaas waa sax markaad baraankiga samaysay falcelin noocyad kala kulantay bulshada saameyntii ugu laaya ku bandida aragtay inta muuqaalkaasi aad samaysay maxay ahayd والله واتك قرنaysaa caydo horta iyada way iska far badan tahay ana runtii la caayo ma jecel oo lagu dambaabo ana cid ku dambaabo ma jecel laakiin dad iska xaraabisanayo kaftan oo jaala baraankiga sameynayay baan ahayn baraankigaas iidi bay iska ahayd munaasabadii ciid iska ahayd dadku yar run moodin xaajiyadna ma yihi lacagna wixii ilaahay siiyay adduun wixii ilaahay siiyay baan haystaa yani saan u hadlay ma yahay xaaladu adigu markaad muuqaalkan samaystay ma istiri waxa tahay gabadhii ugu horeysay magaalada Burco sheegatay inay qurux badan tahay maadaama aan gobolkan laga sameeyay wali muuqaal noocaas oo kala ama baraankiyada ay aad ugu yeelin magaalada Burco gabadhaas aan wahay baraankiga samaysay kuwan ku dhiiray laakiin raali ha lahaado markaa bulshadii ku daawatay imika maxaa leedahay wallahi bulshadii daawatay waxaan uga fal celinayaa raali ahaada baraanki bay ahayd wax kastana yaa la rumaysanin wixii faafay adduun weynaha ka kala dhacay baan arkay wixii adduunka meel walba laga soo wareeyo telefoonada jaam garoobeen talaabaan qaadi kari waayay saribadii baan gali kari waayay gurigeyga ka soo bixi kari waayay marbaas ma liqaab ma xidhataaba marka iga dhima waa leeyahay marka waxaasna challenge baraanki bay ahayd kulli waxa tahay hooyo Soomaaliyeed marka arrintan markaad samaysay kulli carruurtaadu way isticmaalaan baraha bulshada kale markay daawadeen falcelin noocyad kala kulantay ubadkaaga bisinka ubadkaygii familkaygii dhammaan dhaleecayn iyo cambaar baa dusha laga tuuray hatta waa la xirigaa marka heerkaas oo dhan inuu baraankigaas gaarayo umaan maleynay marka maxay tahay raali ahaada dhammaan wax alla wixii muuqayga iyo magacayga iyo telefoonkayga bahayo iga raali ahaada codadkii aan duubay soo gaadheen oo dhan markaan waxay ahayd markii kugu horeysay aad soo gasho baraha bulshada mise muddo badan baad ku jirtay baraha bulshada waxaad ahayd dadka sameeyay challenge-yada iyo baraankiyada muuqaaladan hore u waday ma baraankigu markii ugu horeysay bay ahayd laakiin baraha bulshada waan ku jiraa baraha bulshada waxaad dadka caadiga u isticmaalaan dadka waayahay aad baad u mahadsan